banaanbaxan oo ay ka qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu ka dhacay meelo kala duwan oo kamid ah magaalada Muqdisho iyadoo banaanbaxayaashuna ay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ka turjumayay doonista dadka Soomaaliyeed ee ku aadan in la joojiyo gabi ahaanba faragelinta caadada noqotay ee lagu hayo had iyo goor sida ay banaanbaxayaashu qabeen arrimaha dalkan Soomaaliya banaanbaxayaashan oo ay ka muuqatay carab xoogan ayaa sidoo kale waxay gubeen taayaro iyagoo joojiyayna isu socodkii gawaarida dadka rayidka ay isticmaalayeen ee u kala gooshayay wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo xirayna wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya dadka banaanbaxayay oo ishartaag ku sameeyay gawaarida isticmaalaysay wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada iyagoo waliba wata dhagxaan iyo ulo ayaa waxay ku guuleysteen inay saacado door hakiyaan gaadiidkii ku kala soconayay wadooyinka ka kala yimaada ceelgaab sayidka iyo waliba wadada xawataako ee soo hormartay SYL waxay banaanbaxayaashu taageerayeen oo ay waliba u sacabtumayeen kolka ay soo maraan wadooyinkaasi gaadiidka ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa xoogga dalka iyo booliiska oo aad mooday iyaga laftooda inay banaanbaxayaashu qayb ka ahaayeen maadaama ay u muujinayeen ciidamadu taageero dadweynihii banaanbaxayay qaar ka mid ah dadkii caraysnaa ee maanta banaanbaxayay shucuurtoodana muujinayay oo ay ku jiraan kuwa curyamo ah oo dul saarnaa baaskiilo ayaanu la kulannay kuwaas oo aanu weydiinay bal waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidan yihiin waxaan diidanahay maamulka dibadda lagu soo lacagta la siisay Soomaalida la kala gaday oo wax walba ee qaranka in lagu dumiyo la rabo ayaan diidanahay ma ogoli hadana dadweynaha Soomaaliyeed hadana dalka Soomaaliyeed hadana waxaan rabnaa nabad waxaan u dagaalamaynaa nabad Soomaaliyeed waxaan u dagaalamaynaa nimo wax walba wixii Soomaali nabad ka dhaliyaa taageertana anagu ma taageertana doodaas naftayda maalkayga ku weyn qorqora ku dhaawac haddana dhaawac ka soo bax banaanbixin nabadeena ku dhaawac haddana waxaan diyaar u ah in Soomaaliya nabad hesho in dadweynaha Soomaaliyeed nabad helo in caruurta iyo hooyooyinka wax walba kumaanka laga helo nabadda waxaa ka soo horjeeda shaqiiq iyo xurufyada oo wato mana doonayno gudoomiyaha majmaca culimo-diinka Soomaaliyeed Sheekh Axmed Cabdi Dhacisow oo kamid ah dadkii banaanbaxan ka hadlay ayaa isagu waxa uu qabaa inay Soomaaliya ku dhacday nasiib darro mar haddii aan la garoosanayn lana ogolayn rabitaanka shacabka Soomaaliyeed go'aanada ka soo baxay kamana waxay ka dhigan yihiin Soomaaliya xur maaha Soomaaliya dibadda looga taliyaa waxaa taladoodii la wareegay shacabka Soomaaliyeed qaatay ajnabi oo si dulmi ku qaatay
banaanbaxan oo si iskooda ay dadkii dhigayay isu soo abaabuleen ayaa yimid kadib markii ay soo ifbaxeen saaka warar sheegaya in laga yaabo inuu iscasilaad ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya cadaadiskaas oo ku yimid faragelin ka timid wadamo la tuunsan yahay balse aan la carabaabin عبد النور مودي تلفزيون كخارك مقدش